wiilka oo wejigiisa shaki ka muuqdo ayaa u sheegay askariga inuu arkay jijin u eg tan la raadinayo. askarigu wuxuu ka codsaday faahfaahin halka wiilkuna uu tilmaamay in uu jijinta ku arkay aabihiis. taasi waxay keentay in booliisku u yeeraan aabbaha oo markii uu soo baxay si loo kaxaynayay. markii aabbaha la kaxeeyey haweeney ayaa soo oroday oo u sheegtay wiilka in habeenkii hore gabadh dalxiis ah buuraha lagu waayay balse ay soo baxsatay isla markaana booliisku aabbaha uga shakisan yihiin. wiilku wuxuu sheegay inuu durba uga sheegay booliiska wixii uu ogaaday. haweeneydu oo difaacaysay aabbaha waxay xasuusisay in aabbuhu si fiican u socon karin sidaas darteed ay adag tahay inuu falkaas sameeyo. wiilku wuxuu ku celiyey in jijintii gabadha laga helay aabbaha. markaas ayay haweeneydu ayaa waxay u sheegatay inuu xalay aabbihiis iyada la joogay. wiilka wuxuu weydiiyey waxa ay samaynayeen isagoo weydiinaya inuu qayb la ahayd dembiga iyo in kale. wax yar kadib aabbaha ayaa dib u soo laabtay isagoo la soo daayay. wiilka oo weli jahawareersan ayaa weydiiyey haddii uu fiican yahay iyo waxa dhacay balse aabbaha su'aashaas wuu iska dhiga tiray. si kadis ah ayuu u sheegay in dukaanka rootiga gebi ahaanba la iska dhaafi doono. wiilka wuu argagaxay wuxuuna mar kale weydiiyey sababta hase yeeshee aabbaha halkii uu ka sharxi lahaa wuxuu bilaabay inuu alaabta gurto. isagoo boorsadii jiiday ayuu guriga ka baxay habeenkii. wiilka wuxuu taleefankiisa ka daawaday muuqaal kaamiro qarsoon ah oo muujinaya aabbaha oo jiidaya boorsadii. isla markaas aabbaha ayaa soo galay. wiilka ayaa hor istaagay isagoo si toos ah u weydiinaya waxa ku jira boorsada. aabbuhu wuxuu isku dayay inuu iska leexiyo isagoo ku adkaystay inay faaruq tahay. laakiin wiilka oo aad u xanaaqsan ayaa ku qayliyey isagoo ku eedeynaya in ay dadka hilibkooda ku daraan rootiga isla markaana uu ka cabsanayo in gabadhii la waayay ay ku jirto shandada. aabbuhu eedeynta wuxuu ku tilmaamay wax macno darro ah. wiilka ma uusan dhegaysan wuxuuna si xoog leh u jiiday boorsadii isagoo ugu dambayn furay jiinyeerka. naxdin ayaa dhacday. shandada waxaa ka soo baxday eedadii.